dadweynaha ku dhaqan magaalada Berbera ayaa maanta isugu soo baxay mudaharad xooggan oo lagaga soo horjeedo sixir bararka maciishada qowtal daruuriga maalmihii ugu dambeeyay ee ka taagnaa cabasho xooggan waxayna salka ku haysaa kor u kaca doolarka iyo hoos u dhaca shilinka Soomaaliland kadib markii boqolka doolar qiimaha sarifkiisu uu gaadhay 850 ilaa 900 inta u dhaxaysa dadweynahaasi mudaharaday ayaa eedeymo dusha uga tuuray xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo garwadeenka ka yahay iyo ganacsatada gaar ahaan afarta ku guday ganacsatada habshiilo sheegayna in uu kor u qaado sarifka lacagta doolarka aqoon la'aan maaha waa wax loogu talagalay waa qorshe la doonaya in lacagta dadka lagu urursado waxa la soo daayay lacag fara badan oo bacaysan oo 5,000 oo shilin oo la doonaya lagu qaato doolarka waqtigan iminka waa extraction baa leeyahay oo lacagtii baa la urursanay waana shirqool ay ka dambeeyaan niman ganacsada ah bangigiyo mas'uuliyadiisii gabay oo asaguna qayb ka ah wasaaradda maaliyadda oo aan danaynaynin madaxtooyadiyo iyaduna gabtay mas'uuliyadii ka saaray dadka dhaqaalahooda ka hadlaya doolarka 900 gaaray waxa leenahay madaxweynaha Soomaaliya shacabkii ku doortay codka ku dalaalmeeyay ayaa doolarkii ku gacsay madaxweyne shacabkana waa kii ku doortay halka ku geeyay maanta ina dayarta soo gasho kamaan filay madaxweyne masaakiintii baa soo gashay oo shacabkaaga iyo wasiiradaadii iyo dadka ay ku tumanayaan ganacsatada waxa ay dadku ka mudaharaadayaan waxa weeye wax taabtay oo dhibaatadii baa soo gaadhay maanta halkii doolar wuxuu noqday 9,000 oo shilin waa kuwa meheradi waa xidhan yihiin waxaana weeye waxaasoo dhan waxa ka mas'uula bangiga dhexe iyo maaliyadda waayo dadkan had iyo jeer waxaynoo maamulayaan ahayn dadkii loogu talagalay inay financialka maamulaan waayo waxa kala badan lacagta soo gelaysa lagu sii daynayo suuqa iyo doolarkii loo baahnaa suuqa yaallay baa kala batay sidaas daraadeed waxaan ugu baaqaynaa bangiga dhexe iyo maaliyadda inay xakameeyaan doolarka أنا قلت سريبة ساحل وإحنا كعبنا دولار كنا نخلي مساكنتي أنا وإحنا ينكر ويني يا وعم مساكنتي بختار يا وعم وين ندينا وين كعبنا دولار قبل لقى قبته أو لقى قبته وحوالي مساكنتي ويقول عم بختار بعد وين دولار بالغو قراعي مساكينتي way ku dhexbaqtay magaalada waa inuu maamulka saaxil wax ka qabtaa doolarka oo dadka yaa wixii dareeraya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wax ka qabtaa masaakiinta hoose Somali Cable TV Berbera